in dekedan la dhiso oo lagu dhiso waliba xoog iyo xoolo iyo aqli dad private ay leeyihiin oo dawladda Puntland maada ka gaartay inta muxuu ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka ah dawladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan shanta dawlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqeysay joogtahay mid walba baday ku xiran tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadan tahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka sameeyso intay doonto hal ekaatee waa dhab waxa kale oo aad halkan looga dhawaajiyay Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run Soomaaliya suuqa bariga Afrikana waa ka mid home integration kana waa ka mid wixii kale ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha Allah ilaahay idinkiis dadka reer Puntland geography ahaan Soomaaliya meesha uga yaalaan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanay ugu sahlanayn sida qaybo kale oo Soomaaliya ugu sahlan tahay suuqa oo East Africa inay degdeg ama si sahlan uga faa'iidaan laakiin ayagana waxa u furan dabcan meel aan suuq aan ka yareen oo balaaran oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto wax kasta oo fududeynayo in cilaaqaadkaas dhaqaalaha iyo ganacsiga ay oo horumaro oo uu shaqeeyo oo isku xirmaan hadii aan la yiraahdo ummadaha iyo ganacsiga dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan hadii aan la yiraahdo iyo Horn of Africa oo dhan marka arinta infrastructure-ka dhaqaalaha waa wax aad iyo aad muhiim u ah waana waxa keeni kara deganaanshaha muddada fog ah sanadkii hore 2017 doorashooyinkii federaalka dhacayay halaysan lahay oo kamid ahay qabyaninkeeda dhameystiro qaybihii ugu horeeyay qabyada ka dhameystirmay kamid tahay dekada Garacad laana fikirkeeda iyo taladeeda iyo waxeeda waa jireen si kasta ha u ahaadaan bilow laakiin maalintaas waa jireen waa taagneeday in meeshan maxaan ku raadayay dekad ay noqoto dadkii ugu horeeyay way u istaageen maalintaasba odayaasha hadda halkan ka hadlay kuwa kale oo badanba maalintaasba way u taagnaayeen inay Garacad dekad noqoto marka 7 sano 8 sano ka bacdi alxamdulillah maanta waatana waxaan u taaganahay waa xaqiiqadeedii hambalyaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland hawshan dhaqan geliya waa hambalyeynaya madaxweyne Saciid ayaan si gooni ah isagana u hambalyeynaya oo fududeeyay inay soo degdegto hawshan oo ay qabsoonto oo hadda waxyaabihii la sheegayay maxaan ku raraa kaalmada u ahaa qabso dhismaha dekedan oo dhan qabtay waa ku maadsanyahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kalena aan rajaynayaa inay u tahay tusaale fiican oo lagu daysado oo maxaan ku raraa la daba galo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasto ku taala tuulo kamida horumarka ay gaarto horumar aan ku faraxsanahay oo aan ku qanacsanahay oo aad iyo aad ugu qanacsan anaan jecelahay waay marka horumarka ka socdaay dekedan iyo deegaankan waa horumar Soomaaliyeed waana wax runtii aad iyo aad loogu farxo laguna faano waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Ethiopia walaaleen ka soo socda maxaan ku raadayay xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia in isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la isaga socdo ka hadlay waxaan rabaa dekedan wadada ku xiraysa Ethiopia dhaqaalii ugu horeeyay in hadda maanta saacadan aan inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idinkiis wadadaasi si xawli ah oo dheeri ah oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dekedan leedahay qaadi karta inay noqoto hadii aan la yiraahdo sidaas ayaan muxuu ahaayay jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructure-ka nagu xiri lahaa
Ethiopia hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay energy-ga muxuu ahay xaggaas haddii annaga dekedaheena ay xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badanaa muxuu ahay mustaqbalka nooga iman doono oo ay ka mid tahay energy-ga oo ka mid yahay oo Ethiopia hadda ay meelo fiican ka sii marayso aan rajaynayno mustaqbalkana meelo kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan hadafkeena ugu horeeya waay waa Ethiopian waa run laakiin waa Soomaali at the end of the ugu dambeynta waa dad Soomaaliyeed xuduudda dheer ee Ethiopia aan la leenahay waxaan ugu malaynayaa dalka Ethiopia dalka ugu xuduud dheer oo xuduudda la leh inaan nahay 1700 kilomitir qiyaastii inta xuduuddaas aan kala leenahay dhul Soomaaliyeed dhul dad Soomaaliya ay ku nool yihiin waay labada dhinacba ee muxuu ahay xuduudda sidoo kale Kenya xuduudda aan la leenahay ayadana ku dhawaad 1000 kilomitir 800 kilomitir gaaraysaa labada dhinac waxa ku nool dad Soomaaliyeed waa hadda adigu sidee u dhihi kartaa wiilkan Soomaaliga inuu horumaraan rabaa kan ilma abtiga ama ilma eedada ay yihiin oo dhinac kala degan inuu horumar ma rabo mandiq yani hadal macquul ma Soomaalida xuduudda labadeeda dhinac degan maamul kasta ha ka tirsanaadaan siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horumaraan oo noloshoodu ay qorxoonaato oo ay macno yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududeynayana dawladaha deriska waa kala shaqaynaynaa annaguna waa ka shaqaynaynaa ka dawladda federaalka ahaan haddii aan la yiraahdo intaas kadib intii meeshaan ka soo qayb gashay farxadda nala wadaagtay walaalaheen muxuu ahay Kenya dalka Kenya iyo dalka Ethiopia nooga yimiday farxadda nala wadaagay aad iyo aad ayaan muxuu ahay ugu mahad celinayaa una bogaadinayaa mashmuuc aadan waxaan leeyahay mahmaadii unsiga maanta waa ka fakatay oo muxuu ahay kismaayo marka soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya dalkiini waa at the end of the day ugu dambeynta qof kasta Soomaaliya caalamka waxa la yiri shimbarka hadoo duulo irsaqiis waa dhulka la yiri si kasta u duulo markuu wax inuu cuno rabo waa inuu dhulka soo degaa Soomaa qofka Soomaaliga meel kasta ha jooga Soomaaliya is a home Soomaaliya waa hoyga guriga muxuu ahay dadka Soomaalida oo dhan ay muxuu ahay ku faani karaan anay wada leeyihiin annaguna sidaas ayaan tixgelinta u soo mar kale dadka reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan muxuu ahay ka shaqeysay mashruucaana si gaar ah hambalyo shirkado badan oo Soomaaliyeedna waa muxuu ahay sameyn doonaan waxaan leeyahay investmentiga shareska dekada face koobaad face labaad iyo face saddexaad iyo face afaraad oo si dhiman iyo ka badan investmentigana hal furo Soomaalida oo dhan iyo dibadda dalka degan oo dhan ha ka wada qayb galaan ownershipka dekada hal wada lahaado hadii aan la yiraahdo insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh